inaan ka soo qayb galno shirkado Soomaaliyeed oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay hal abuureen oo ay leeyihiin fikirkooda ka hormuud ahaana annaga doorkeenu waxa waay inaan dhiiri gelino shirkadaha yar yar ee soo koraya annagoo mar kastaba garab ku siinayna tiknoolajiyada iyo horumarka laga gaaray maxaan ku raahdaa aqoonta isgaarsiineed sida la idin sharaxay processka uu ku shaqeeyo barnaamijkan oo ah fariin in loo diro su'aal loo diro maxaan ku raahdaa dhageystayaasha ama daneeyayaasha ka bacdi ay fariin ku soo jawaabaan processkaas noocaas uu maraayo oo fariimaha la isku dhaafsiisanayo hab isgaarsiineed waay hormuud marka dowrkeedu waxa waa inay fududeysay habkaas isgaarsiineed markastanaba waxa waaye annaga si guud marka laga yimaado fududeyntaas sidaas oo kale barnaamijka waxyaabo laga shaqeeyo waxa kamid ah waxbarashada iyo wacyigelinta hormuud waxay leedahay oo dhageystayaasha iyo daneeyayaasha dhalinyarada ah ee raba inay ka faa'iideystaan barnaamijkaas aan rabaa inaan la wadaago dhowr adeeg la yiraahdo muallim oo ah adeeg maadooyinka caadiga ah ee school subjects-ka la dhaho lagu barto qofku si caadi u isaga diiwaan gelina isagoo iskuulka joogo kale ayuu maxaan ku raahdaa uga faa'iideysanaya wuxuu leeyahay su'aalo iyo jawaabo sidaas oo kale waxa jira barnaamij la yiraahdo fariin wadaag waxa laga abuuraa golayaal public ah iyo golayaal private ah golayaashaas iyadana waxa la isku weydaarsadaa su'aalo iyo jawaabo iyo qof kastaba aqoonta maxaan ku raahdaa qofka kale wuxuu u gaarsiin karo waxa kale oo jira barnaamij la yiraahdo aqoon maal oo ka kooban 4 qaybood qayb kastana ay maxaan ku raahdaa leedahay muhiimadeeda wacyigelin talooyin caafimaad barbaarinta caruurta yaani field kasta oo waxbarashada iyo wacyiga ummadda kor u qaadaay ay adeegyadaasi maxaan ku raahdaa focuskoodu yahay markaan ku soo laabto waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno xafladan lagu soo bandhigayo abaalmarinta guuleystaha iyo daahfurka shirkadda deeqsade annagoo sii xoojinayna doorkeennii ah inaan garab siino ganacsiyada yaryar mar kasta iyo mar kaleba waxaan diyaar u nahay inaan sidaan oo kale u garab siino annagoo uga faa'iideynayna isgaarsiinta iyo resource-ga ay shirkaddu hayso intaas ayaan rabaa inaan ku soo koobo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.